waqti walba okay wax lagu qosla meesha ma yaalaan biyo just like acting like qosla jiroysa but mana ku hayo qosol dadka caanka dhan qosolku waa ka xanaaqaa yaa ku dhahay qosla laga xanaaqay oo fari acting qofka ma dabeecada marar badan oo ku arkay marka qof hadal caadi ka wada hadlaysaan like qosolka oo macnaha ku fadhin ma fiicna iska istaaji bas okay wax lagu qosla meesha ma yaalaan biyo just like acting like qosla jiroysa but mana ku hayo qosol waxaan ma ka hadlayno serious topic waxaan qoslo ma ka say no serious topic ka hadlayna an still qosloysa I don't know sa u hadlayso qofkayga dhameeyro sa u hadlos you know waxaan qoslo ma ka say hadal bu markaan sheego ma aragta hadalkii hadal kale ka sii dafusa taasoo ku qoslo marka warbaani joog aan kula yar dadka hadalka oo dhameey maya no saas ma jirto no war suuq hadalka aan dhameey no mar qoslo ay qabto wallahi ilaa hadda suuq hadal aan dhameey imaba aad dhihin abo waxa ay dhahdo ma jirto bo waa wataa hadda kaama maqan adoo idhahaysi isugu maari hadal aan dhameey ma maqasheen ma maqan ani hadda gadaal ku dirsan tamiya oo spices ay waa game noo tahay hadda anagoo wada sheekaysanayna haddana waxaa laga yaabaa in qof inuu ciwaanka dhigto qurux ku dhiig la yimaado waxaan daawaday muuqaal live-kiina laga duubay oo labadiinoo murmaya ah dad badanaa waxay u fasirteen siyaabo kala duwan sax falcelintii dadka ka timid qaar badanoo waxaa arkay adiga ku taageeraya qaar kaa soo horjeedo adiga iyo jaag oo laba qof oo la isku kiin barta dadku isku kiin barteen isku kiin ogaayeen soo wada shaqeeyey in heerkaas ay isla gaartaan xalay maxaa sababay su'aal fiican horta wax saa u weyn ma jirin wax yaroo iska easy ahayd laakiin dadka qaarkood oo falcelinta ka dhiibanaya horta anaka dood baa gameka anakoo dheelayna camal hadal isku keenay hadalkaasna wuxuu iska ahaatee hadal iska common oo wax iska normal ah fikirkiisu asaga ka hadlay ana fikirkaygaan ka hadlay kadib like xoogaa adiga doodii nala dheeraatay dee qasab maaha inay labada qof isfahantay moogta mararka qaar isfahan waa ama misunderstanding wuu dhici karaa so waan isyara fahmi weynay markaan isyara fahmi weynayna si xoogaa disrespecti ah oo yara jees camal ah buu u qosqoslay markaas waxaan ku idhaahday waa laga fiican yahay qosolka bilaa maalayacniga ah anakoo ka hadlayna wax serious topic ah ma fahanti maanta adoo ila hadlayso okay wax lagu qosla meesha ma yaalaan biyo just like acting like qosla jiroysa but mana ku hayo qosol waxaan ma ka hadlayno serious topic waxaan qoslo ma ka say no serious topic ka hadlayna an still qosloysa I don't know sa u hadlayso qofkayga dhameeyro sa u hadlos you know waxaan qoslo ma ka say hadal bu markaan sheego ma aragta hadalkii hadal kale ka sii dafusa